qarankay kabaan waxay koriyaan ciyaaruhu kaskiya caqliga jirko waxay kulmiyaan bulshada waxay kulmiyaan bulshada بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بقى مهد إسكاله كوبكي مدة بدن سو سعودي حج داير استاديوم كسو سعودي هير كلابات يسورو بيدها إنه إلهي سفر حله وبش وبرواقله ونوجد مي ما أنتوا إحنا شوفنا ومناسبتي سو قدام يسي وعيارتي قدام يسي وفاينل كي هتو الله يراه marka labada kooxood waxaan u rajeynaa guul iyo akhlaaq wanaagsan iyo saddex qalbi bulsho inay soo bandhigaan haddii alla yiraahdo ilaahay waa mahad marka hore nagu sumay maanta inaan finalkii koobka aanu qabanay haddii ilaahay iyagoo nagu soo qayb galeen ku sumay suudiga wasaaradda isboortiga Yunus Ismaan Arite agaasimaha isboortiga Somaliland iyo agaasimaha waxiidka isboortiga Somaliland iyo guddigii laga qaban qaabsay koobka oo horeeyo qurbo joogta gobolka Awdal Fatah Nuur Daahir iyo Sheekh Xasan Khayr Cabdullaahi Arbile iyo dhamaan dadkii nagala qayb qaatay oo idin celino anigu ka hadlaya afka gudoomiyaha koobka iyo afka kooxda gudoomiyaha waxaan marka hore aad iyo ugu mahad celinayaa kooxda Axmed Gurey FC oo muddo 9 bilood dhisan ku soo hoysay laba koob oo mid ahaa horyaalka biida oo qaaday iyo mid ahaa maalinta dhalinyarada Somaliland oo qaaday labada koob ay qaadeen awgeed bay lagu suuro galiyay inay koobka u qabtaan waxaan maanta koobaad leeyahay kooxda gaadho isuduwa isboortiga gobolka Awdal Samaroon Cabdullaahi Cilmi marka koobaad waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda isboortiga ay nooga yimaadeen madaxdii ugu sareysay agaasimaha guud Maxamed Xuseen agaasim waaxeedka waaxda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Nuux kulli nidaamkii hore isboortiga waxaas wax badan baa iska bedelay imka waxaad ku arkaysaa aabbo wata carruurtiisiyo yaryar inta wuxuu soo doonayaa inuu kubadda jacaylkeega iyo quruxdeedu uu daawado markii horena waxa dhacayso qofkii inuu bajaan soo helin isagaba inuu naftiisu uu daawan taana waxa keenaysay xagga ay dadku u bisleen laakiin imka dhalinyartu aad iyo aad bay ugu bislaadeen koobkani waa koob 32 kooxood ka kooban waa koob muddo badan soo socday waa heerka labaad waa Serie B insha Allah labadan kooxood isku soo haray muhiimadeedu ma laakiin waxa weeyaan muhiimadu isdhexgalka iyo in la fahmo horta kubaddu ujeedka iyo macnaha loola maagan yahay gaabka u dhaxeeya mise waqtiga u dhaxeeya tartanada ayay dadku ka niyad jabi jireen markay is arkaan marka tartan kaliya la qabto sanad mise 2 sano markay ka soo wareegtay kooxahaas is arkaana waxay keenaysaa caqabad amni xumo laakiin imika koobabkii markay isku xigaan nidaamkii iyo wixii qorshaha la mariyo dadkii waxay daneynayaan kubadda jacayl iyo wanaag bay u qabayaan farxad ma maanta inaan kala soo qayb galno xafladan 32 kooxood maanta halkan ay gabagabada ugu tahay in laba kooxood ay isugu yimaadaan finalkii labada kooxood aynu arkayno in daawanano oo ku tartamaya sida ay koobkan yaala halkan u kala qaadi lahaayeen sidoo ninkii dhalinyarada ah gudoomiyaha FC Axmed Gurey inoo sheegay waxa kale lagu dagaalamayay tartankan loo qabtay 32 kooxood ee iska kaashanayeen wasaaradda iyo dhalinyaradu tahriibkuna waa aafo wadankeena ka jirta inkastoo marin u tahay inta badan dhalinyaradeenna gobolkan Awdal sidoo ninka dhalinyarada sheegay waxaanu mar walba ku dhiirigelinaynaa dhalinyarada in isboortigu yahay horumar dhalinyaradu ay gaari karto oo ay isugu iman karaan oo ay isku baran karaan oo ay kula dagaalami karaan qabyaaladda iyo muqaadaraadka iyo tahriibka iyo waxyaalaha la mid ah ee dhaqankeena ku haboonayn runtii farxad weyn bay noo tahay anaga sida la sheegay ka wasaarad ahaan inaanu maanta ka soo qayb galno gunaanadka tartankan runtii u socday kooxaha heerka labaad ee degmada Boorama ujeedadaan u nimid waxa weeye dhiirigelinta ma ahan koobkan oo kaliya waxa ay inaanu dhiirigelino dadaal in badan ka soo socday gobolkan iyo horumar tartamo kala duwan qabsoomay shaqo wanaagsan oo ka socotay waxaan aad iyo aad halkan uga hambalyeynaya runtii Samaroon Cabdullaahi Cilmi oo ahaa isuduwihii wasaaradda waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu hawsha u baxay caafimaadkana ilaahay u soo fududeeyo
gobolkan iyo dalka Soomaaliland waxa ka jirta abaaro baan runtii waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay abaaraha ka jabiyo dadkeena waxaan dadka reer Soomaaliland iyo gaar ahaan dhalinyarada ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan gurmadka loogu jiro waxa weeye samata bixinta iyo u gargaaridda dadka waxa weeye tabaalaysan ee dhibaatada soo gaadhay ee abaaraha iyo waxa weeye duruufaha kale isu kaashadeen haddaan soo noqdo ciyaaruhu runtii ahmiyad weyn bay u leeyihiin dalkeena Soomaaliland iyo guud ahaan dunida dadaal badan baa laga wadaa dalkeena la doonayo beeska loogu dhigo ولوجناهي بقالها هديتاي وحوي الرب بدل كوا عقبالها هيستجد كان يدل يروي وحوي جودها بينه كهنا قاران ترتمي اللي يجوين أينا هيستي وحنوم كانوا وزراء سمعنا فتو قرشيه السياسة عرنتها اللي بتشبلها وحندورنا إنه أساس أصلا إنه هنتي ومركي كوالي نسوي سنين استيشن لو حكى شقة ومدة مكوك عن قوته مرة يكسبوا مريم وعكروا إنه الجرامة دي حاجات شو بيس كود ابنه تقال صوص عليه هنتي مدة هي ما أنت من الكيس الموضع واليرد الرار أول يكون دقمنا بورمه يوحوي ستاف كوزارة ده وحوي يجود له وحوي تبرع كل شقة يسايا مكور قبله أقويها يرتوبها كل ذول واحد يجيب الشهرين يرنتي إنه دجال كاسمال في عن مريو سنة كان إن شاء الله وحقرون كان بيجي دونا كاربت كي عقار كها artificial جراسكي وعيدا نوركي نادي وعتدي نوهيسا أيون عربتي إن كبدل دونا قرون كان يقرأ مكربا وحين رجعنا إنه أبوره ليج يترتمه قار هور قولا يقار وحوي ناشنال وحوي أي دتك إنه عروتنا ولا عيارته وحكلنا سمين دونا ناشنال تيم كي سومالان إلا السماء يبدأ يبحان عروتين حق بيقول لي هسه كوي وكلا حين ما وصل من الدوال كشاركة حين ما وصل من الرول سبورت قبل كي يكون عالم كذا